صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan qaadan doonaa 10 grammar ah. 10kuna waxa weeyaan what's the grammar amba waa maxay grammarku. haddaba ku soo dhawaada 10 oo faahfaahsan. isku soo noqod wanaagsan. maanta casharkeena ku saabsan grammar waa naxwaha. marka saddex qeexitaan batin noo yaala grammar ku leeyahay ka ugu sareeya in baad muhiimsan kana waa qeexitaan soo raaca. marka what's the grammar waa maxay naxwuhu. naxwuhu waxa weeyaan qeexitaanka koobaad. grammar naxwuhu is art waa qaybta of putting la dhigayo right words kelmadaha saxda into the right places goobaha saxda. waa habka la dhigayo ereyada saxda ah goobahooda saxda. qeexitaanka labaad is how waa sida. is how to put waa sida loo dhigo words kelmadaha together si wada jira in a sensible order hab micna sameynaya aan add loogu daro the right ending dhamaadkooda saxda. waa sida loo dhigo ereyada si wada jira oo micna sameynaya hab looguna daro dhamaadka saxda ah. qeexitaanka saddexaad waa the study barashada of the way habkii that the words kelmaduhu can be put together la dhigi karo si wada jira in order to make say u sameeyaan a sentence jumlad. waa barashada habka ereyadu loo dhigi karo si wada jira oo loona sameeyo jumlad ama sentence word. qeexitaan koobaad grammar naxwuhu is art waa qayb of putting dhiga right words kelmadaha saxda in the right places goobahooda saxda. qeexitaanka labaad is how waa sida to put loo dhigo words kelmadaha together si wada jira in sensible order hab micna sameynaya to add loogu daro right and dhamaadkooda saxda. qeexitaanka saddexaad waa the study barashada of the way habka that words kelmadu can be put la dhigi karo together si wada jirta in order hab to make ay u sameeyaan a sentence jumlad. halkaasuu maanta casharkeena nagu sheegayaa. This is enough for lesson today.